soo dhawaada saaxiibayaal waxaan kala soo hadlayaa degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan waxaan iga daawanaysaa page-ka King Suuriyan halkaan kala soo hadlayo waa xaafadda waa bari gaar ahaan aaga xarir yaale waxaana ka taagan xiisad ka dhalatay amar uu maamulku soo saaray oo ahaa in ceelkaan iga dambeeyo loo bedelo garoon ciyaareed balse dadka xaafadda ku nool oo arrinkaas ka biyo diiday ayaa hubkooda soo qaatay isla markaana sida ay u jeedin aagaan oo dhan difaac ugu jiro aagaan aan kala soo hadlayo waxay u xiran tahay dadka xaafaddan oo hubaysan mana jirto qof dhex mari karto ilaa iyagu amar bixiyaan maahani dadkaan idin muuqdo waxa ay ka biyo diideen ama se ay ka soo horjeesteen in ceelkan loo bedelo garoon iyaga oo sheegay in ceelka ay baahi weyn u qabaan odayaasha haweenka iyo dhalinyarada oo halkan isugu soo baxayaan sheegay inay u baahan yihiin in ceelkaani loo dayactiro qaybta bariyaan u xidhnaa magaalada Matabaan intaas tuba soo dhex marta ayaan biyo ka raadinaa waxa waa xilli waliba markii magaaladu ay biyaha isticmaalayso anagu waa manahay waxaan u sheegnay inaanan baahidanada koowaad ay saciyaar ahayn oo garoon ciyaareed oo baahidanada koowaad ahayn haddaan nahay xaafadda xarir yaale ee degmada Matabaan waa naga aqbali waayay baahidanada koowaad inay ka jawaabaan inay cabashada bulshada dhageystaan way aqbali diideen waxay nagu adkeeyeen in meesha laga dhigayo garoon in badan markii aan ku laabanay waxaan la faysanaa odayaasha degmada iyo guddi IOM ay u sameeyay looga sameeyay degmadu loo sameeyay inay bulshada dhaqaalaha laga rabo ka aruuriyaan suuq ayaa hadda socda dhaqaalihii loo aruuriyay 20 ayaan ka bixinay qaybtii nooga aaday waxaan ogolnahay ama rabnaa horumarka magaalada waxaan rabnaa wixii horumaraha magaaladu ay u baahannahay laakiin baahidu waa step garoonka wuxuu nagala dhaxayaa degmada dhulna waa iska buuxaa bannaan oo laga dhigi karo garoon maamulkaanke waan u sheegnay dhul bannaan inaan hayno oon lacag ahayn in laga dhigo garoonka ceelkana naloo dayactiro oo naloo qodo saasaan soo jeedin maamulku nagama hoos qaadin guddiyadii kale la fariisanana waa ka hoos qaadi diiday saas awgeed waxaan maqalnay in maamulku uu ciidan diyaariyay lagu dhisaayo garoonka ciyaaraha ceelkana lagu baabi'inayo bulshada ku dhaqan xaafadda xarir yaale waxay go'aan qaadatay markii oon u dhimo lahayd maamulku inuu xabad ku dilo oo oonkii xabad loogu dilayay marka ay soo muuqatay soo baxday inay isdifaacaan oo wax baahidooda ka jawaaba haddaan la arag inaan dhibaato kale lagu kordhin oo dhib kale ku kordhin oo xaafadda aan dhibaato kale ku soo kordhin inaan garoon aan xaafaddu rabin lagu qasbin sidaas ay xaafaddu go'aansatay waxaa kalifay in dhibkaas yimaado maamulka degmada waxaan u sheegaynaa dawladda Hirshabeelle midda federaalka dhammaan waxaan u sheegaynaa qolada biyaha ku shaqada leh in garoonka aynan ahayn baahideena koowaad ay biyo tahay halkan waxaa isugu yimid dadkii deganaa xaafaddan la yiraahdo xarir yaale oo ceelka meeshaan ka sugaysay muddo aan dhaweyn 33 sano ayaan sugaynay ceel inaan meeshaan ka helno intaan ceelka sugaynay waxaa timid meeshii in la yiraahdo ceelkii aad sugayseen meeshii banaankiisa ceelkii isbartiiba laga dhisaa isbartiibo markii laga dhisaa waxaan dhahnay isbartiibo biyo iyo banooni waxaa daran biyaha noo hormariya haddii dhulka uu qaban karo mataqaanaa meel kale badan lagu ciyaari karana ma diidanin laakiin ceelkii biyaha noo hormariya 3 kilomitir iyo bar 4 kilomitir ayuu noo jiraa ceelka noogu sokeeya annagu marka dad fowdaa oo wax walbay sameeyahay oo say rabaan yeelaya ma ahin maamulka waa la fadhiisanay waa la hadalnay waxaan u sheegnay baahida dadku qabaan u sheegnay warkii soo socdo aakhir wuxuu ku soo beelay buruniga waa la dhisaa war kale ma leh intaas oo sano ceelkaas lahayo 3 sano oo biyo la'aan xaafaddaanu tahay
وعيل نوجد 4 كيلومتر تبلغ توجد أنت صاحب الأحمر وحافظها قدام بيانها مجال قدام بيا ما بالهلا بيو إن سيدي مثلا بيها نسكجوها هذينكي بركي بالرقم مانس وكنا راهن وضف كنا راهن وبيو حول كنا راهن ما سوينا سوى فعل ويدي عيال كتوحد أن عيالهم كسوقنا ما تدرنا عيال نوعنا وبديها ونسيها إن عنك أحد من العقل أنا نسيها إن لسه وبقول لك سمعت تاس كذب وحنا منك شيء إن دولة فدرالك معمول كثير شغل قبل كهيران قدامنا قبل كهيران أنت أسبوع أسبوع حقولنا هاي سيدي وقولي كرعال إن حافظ عن عال الله قضاه والمتقنا بنون جانا لقد يا ماشي عن لي عالك وادي له قضى بنون قد سؤال قاس هو كنسل وح أو شقينا يا ملهن وح اللي جاء مل جاء بقية مل عمر ملنا متشريسو وحنا مركلنا هاي حديث سومالي ما شفته ومسلمين ما شفته عيال كان ماشاس عن القضاء بنوني أنك تبغى ما هي قف من بيان هو أدلغه بيها هنا لسيو وهنا لدي داران يا عمري أسلعك أنا أرض بيان كده بتشيل أسكوك أيوة أقعد عالك وكيال الناس تقول لي أركض عن حد يقول بحل ما أنت بنوني الجوسة ماشي الوعي عيارة قرقي منطقة أيوة ديجان كي يبيه وإبر وطبعا قال كرنا معه ماشي أنا كل عام أربعة هنا هاي مسلمين نوسوا جرمدة دولمين نوسوا جرمدة ديسان نوسوا جرمدة دولة فدرالك هرشبال يقدميها قبل كهيران انت وحنا جالسين عد عد قابنبا إن هل كان أربعة أنت هاي إن وحلا قبته waxaan ka cabanaynaa biyo yaro dadka xaafadan degan oo xariir yaale waxay ka cabanayaan biyo yaro in badan ay ka cabanayeen in badan ay waxay u taagnaayeen fagaarayaasha in badan ay codsaayeen codsigii iyo cabashadii anagoo maamuladii soo meeshan soo maray kurtu u waadirnay oo ka sugaynana waxaa noo yimid culays kale waxaan noo sheegay in lagu bedelaa garoon ciyaareed dadkan waa ma qaadan karaan garoon ciyaareed waa dad ooman 33 sano waxay ilaashahayeen barxadda ceelkaas oo islahaayeen ceel aad heli doontiin oo codsahaayeen oo fagaarayaasha u taagnaayeen wili codsigiyaan joognaa maamulka waan u tagnay waxaan ka codsanay ceelkii walaalayaal sharcan idin ka codsanaa hadeerna rabnaa nidi garoon ciyaareed haddii la rabo gulaan baxaynaa oon ogolnahay oo ku habboon oo garoon ku habboon xaafadahan oona ka jira inta xaafadaha magaalada ay adeega iyo biyaha ay cadayaan xaafadaha si u badan biyuhu soo gaaraan xilliga dadkaas ay ama ay harsadaan xilliga harsibada ay tahay ama habeenkii la gaaro oo dadku ay seexdaan biyuhu soo gaaraan kurtood fuustayaal u yaal ay biyaha xilligaas ay ku kaydsadaan anigoo ku hadlaaya ururkii hooyooyinka oo xaafadahaas biyo la'aanta iyo baahidu ka jirtay kasoo dhex baxay baahida sida la og yahay adduunka baahidu waxay uga jirtaa baleen A iyo baleen B iyo baleen C baleen A waxaa ku jira biyaha caafimaadka iyo waxa qutul guruuriga oo food lagu noolaado maanta qof biyo u baahan in la yiraahdo waxaad u baahan tahay ciyaartay qof kaste oo wax bartay iyo adduunku wuu ka warqabaa waxaan marka rajaynaa bulshadan codkeeda inuu shaqeeyo oona ka shaqeeyo dadka mas'uuliyadda ka haya oo ugu horeeyaan maamulka aan ka tirsanahay Hirshabeelle oo ay ku xigaan dawladii federaalka ee Soomaaliya xildhibaanada halkan ka soo jeedo wasiirada waxaad u dhaarateen oo kitaabada u marteen oo kuraasta ugu fadhisaan waa hooyooyinkan iyo bulshadan cabashada qabto dadkana haddii aan cabashadooda la tixgelin waxa laga daba tagaa intooda yaa yirki guri ku xira asagay ku soo laabatay cuntaa waxaan leeyahay arrinkaas hal joojiyo meesheeda xil hal iska saaro hay'adda mashruucan fulinayso oo IOM 2018 halkan markay imaatay ceelkan GBS ay ka qaaday waxayna sheegtay in arrintiisu ay tahay arrin fudud maanta ayadoo og in ceel meesha looga baahnay inay tiraado waxaan kugu fulinaynaa mashruuc oo isdhexgal bulsho qof kasta wuu iska dareemi karaa qofkana wuxuu cayaaraa markuu soo dhargo marka qof baahan ma cayaari kare bulshada waxa loo qabto annaguna waan
واديني حلبان وسير أوضكم وأدين أرنتاس على شنا ما يوحنا شيئا إلا بس جواب sidoo kale ceelkan waxa gacanta ku jiray aasaasi ceelkan ahaa Allah u naxariistay nabadoon Cali Hudey kaasi oo mootan in ka badan 20 sano halkaana waa halka uu ku dhashay taliyii hore ee booliska degmada Gurceel Ismaan Cali Hudey